بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقى ما هذا السكاله حد حلقان ساعة حبدي واقودي dhawacyada iyo meedadka dhimashada labada dhinac ba liiso sheegayo inta aan qasaaraha inta la idin dul istaagin colaada meesha ka socoto sanad baan ka hadlay meesha wax ka socdaan waa deegaan Puntland weeye ciidamadii dadkaas reer Puntland iyo dadkaas walaalaha iyo wada dhistay ama kamid ah daaroodkii meesha wada dhistay ciidamadii deegaanada daarood ilaalin lahaa waa kuwa waxa la yiri argagixiso iyo shabaab adani u ka haystay isagoo isu ekeysinay xashiq dad xoreeyay isagoo tii ka duulay waa kan buurihii buu aaday buurahaasna wax ku jiro argagixisa ma jirta waaga adiga daawaraya dhalatay anuguna aan dhashay waxaan maqlayay buurahaas cilada ah oo bari dusheeda ah argagixisa ku jirta dadkii lagu sheegay jiray dani oo maanta madaxweynaha nooc ah kamid ah halka waxa ka cad wax argagixisa la dhaho inaysan jirin laakiin qorshayaal kale baa dadka reer Puntland loo maleeyay maanta meesha xabadu ka socoto kuwa daniyeysan baa u sheegaya maanta meesha loo jicbuur iyo meegaagta iyo sax qurun inta waa deegaan Puntland ciidamadii meesha ilaalinaa ee beesha leelkase waxa loo ka haystay buuraha loo ka haystay waayahay marka ma waxaad ugu gurman doontaa Umar oo soo bax Ismaan oo soo bax Warsangeli oo soo bax Reebicidiyahan oo soo bax mee Puntland ta wada dhisanay markii waxa soo dhan laga hadlo waxa leeyahay Yacquub oo kala garo dani iyo Puntland war Puntland dhan baa god ku dhacday shalay beed waxa ergalax badu ka socotay xafiis saaq u furay hartigi oo leeyahay diiwaan gelinaya sax waana dhul Puntland bay xisaabsanta si aan dadka walaalaha ayna nabad ugu wada noolaano ama dadka meesha ka jira ku xisaabtan oo difaac ama dadka dhibaatada iyo kada iyo dhaqan xumada leedan ka karimay aqli saliima oo maanta dadka reer Puntland ku haray ma jiro dadkii waxay noqdeen wax sanaati lagu ka haystay waxa kii hadla sida anoo kale hadda waxa ay u shaabadeen afayeenkii argagixisada ileeyihiinba waa iyagu waxay rabaan kaliya soconayo qof mucaarada lama rabo in la arko anigu xaq waa sheegaya waan ku aadimaya saaka halka waxa ka dhacay qasaaro saddex jiho bay waxa ka soo weerareen nimankii sacad waliba halka waa mahad celinaya marka la qoorqoor afka dhamaan dadka reer Puntland ku hadlay marxaanti waxay ka ahaayeen ninkaas roolka uu colaadaas ku lahaa inuu nabad ku baaqay guwafuud soo diray cid wax walba sameeyay laakiin wiil sacada oo jaadwala ah oo liibaan shuluq la dhaho oo tolkiisu galmudug iyo Puntland isaga hor keeno baa arintaas dabada ka riixaya oo jiriyo qaadwala ah annaga kii jirida noo ah waa dani weey wakaas buuru isku boojeenaya reerka sacadkaana kaasa jiri u ah isagaana dagaal colaadan sanad baan ka hadlaya sanad baan arintaas sheegaya waxaan leeyahay war meesh wax ka socdaan waa dhul Puntland dhul sacad ma aha war waxaan wax la fiirsan kara ma aha war wiilasha sacad waa kibreen warinka qaadwalaha dabada ka wada aniga dhag jarq waliisi way anoo Yacquub ah laakiin dadka reer Puntland maanta kadib ogaada ninkaas sacadka nabad ma uu rabo wax iska celiyo raba isaga iyo reerkiisa iyo jifidiisa wax dagaalka uu ku baaqay kula baaqa oo la dhameystuu raba waxa idin sheegay qasaaraha idin dul istaagaya saddex jihay saaka waxa ka soo weeraray labadii meegaag ilaa jicbuur qasaaraha iyaga dhankooda ay mee goobta ka qaateen waxa la ii sheegay 11 dhaawac ah iyo 13 dhimasho waa la ii sheegay waxa kale oo maqlayay dhaawacyo kale iyo meedad kale iyaga gudaha ugu sii jira dagaalka maanta dhacay waxa ka sii horeeyay dagaalka kale oo gabadhii aad arkaysay dhulka fadhiday wiilku uu qoriga ku hayay gabadha ninka qoriga gabadha ku hayay lama yaabayo leelkase waxaan la yaabanahay ninkii gabadhaas soo kaxaystay oo u soo kaxaystay deegaan leelkase oo og inaysan leelkase dadka ku khaldamin oo og meeshaan lagu dagaalamay inay leelkase leedahay gabar walaashii u soo kaxaystay markii dambana ragga leelkase uga dhax cararay wiilka sacadka ah ee aqliga markii hore ku fakiray kaasa horta anigu la yaabana waxa dhacday 12 meedadka maanta meesha ka qaateen iyo kan gudaha ugu jira markii laga tago saacada xabadii waa qowday dhankan leelkase qasaaru waxa weeye hal dhimasho ah iyo 3 dhaawac ah waa isdifaaceen gurmadku ilaahay hadda waa qulqulaya labada dhinacba laakiin leelkase baan fariin halkan uga diraya wartalka leelkaso dadkii shalay wax wada dhistay baan u ahayn haddii magaca Puntland aad maalin masab iyo difaacaada ku heleen iyo inaad Puntland ka tashatid intaad sacad iska celin inaad Puntland ka tashatid bakaaga qurux badan ko waxa kale oo ku qurux badan wiilashaadii la kaxaystay oo la yiri buuraad argagixisa ka difaacaysan inay maanta waxa socdana 10 u noqoto
waxaa laydinka rabaa hubkii idinkoo sacad soo fadhiya shalay inta idinka dhinac laydinka mariyey oo argagixiso la diriraya in sacad loo gacangeliyey oo leeyahay argagixisada isaga celi minis leelkasa isaga celiyay ahayd haddaa qodobkaa fahmi weydana maanta anaa far waaweyn kugu dhigaya marka dagaalka waa ku bulaashay maalintii labaad ma aha oo maalintii saddexaad ma aha sanad baa jifin leelkasa ka mid ah iyo nimanka habargidiri soo fadhiyaan inaad ku bulaasho oo suuyo gadato oo tiknika gadato oo hubka noocyadiisa oo qurba joogta leelkasa iyo kuwa dibadda jooga iyo dalka jooga ee meel walba ul iyo dir u noqdaan unbaa dagaalka ka dhaxasha shirweyne u baahan yahay leelkasa inuu isugu yimaado gacanna puntland kaga tashto gacanna iyo daaroodka xataa kaga tashto gacanna isagu suu ku heli lahaa deegaan oo isagu deegaankiisa ku difaacan lahaa inuu galo aadan wasalaam wiilasha sacad waa galmudug waa ka diideen nabadii wiil in adeerkooda qaado walaa liibaan shulqul dhaa ku shaqaysanaya ciday ka qarsoon tahay male oo saasuu qaadka iyo qashinka iyo usoo siinaya markay soo cabaana xabad bay soo bilaabaya nabadii waa diideen ilaahay markhaanti ka ahaw soomaaliya markhaanti ka ahaada nabadda sida sacad u diiday afreelka saaro ku hadlay anaguna waa diidnay subax saaka nabadda anaguna waa diidnay leelkasa waxaa la rabaa shir degdeg inuu isugu yimaado arrintaana waa arrin isirsifays ah wey waa labada qolona waa is ogyihi waxaa layidhi maxaa kulmiyey baa layidhi saca weyse naasa adag iyo weedha maxaa kulmiyey nimankaa majeerteen iyo sacad is og asaan anigu tuhmaya wey sababta buuraha aan waxba jirin in maalin ergaabo dadka lagu fiirsado waxay isaaq ku dhigayaan maantana lagu fiirsado deegaanadii puntland in wiilal sacda laga celcelin layahay nabadda sacad diiday ilaahay oo annaguna ma rabno rabbi oo raxmaana subax saaka waa diidnay afleelka saaraa ku hadlaya waanu is arkaynaa sidaan shalay uga gacan sarreeyey oo maanta goobta ugu gacan sarreeyo baan sanadkan oo dhan ugu gacan sarreeyey waana ugu gacan sarrayn doonaa nabadda aniga ninka keyrkayga u diiday anigu ma doonayo mana rabo shirweyne degdega in leelkasa isugu yimaado wey nimaa shantaadu kaa reebin sharci kaama reebo qorqorre kaama reebi karo hawiye kalena kaama reebi karo laakiin markaa dheg iyo dhaban ku dhufatay laba mid noqonaya ama kuwa soo raaca ama kuwa dhaha waxaan kaa celcelinayna soo nimankaa ma ahayn ha waxaad kays waxbaa naga sin sida annaguba aan samayno kaaya gardar aan dhahno orbal daro dadka la aad haddaan la isqaban runta la isu sheegin maalin walba wiil waxaad arkaysaa gabar ka cararay sidii daraadba dhacday muuqaalada daraad colaadda waa ka hadli lahaa guusha leelkasa uu soo gaarina waa ka hadli lahaa wixii dhawaxa igaga cayaaray wiilkaa gabadha duubay kan gabadha duubay igagama cayaaran waxaa igaga cayaaray kan gabadha ka cararay anigu waa gobannimo dirira maaha ma gunnimo diriro mana aqaana aniga gacan laga cabsaday warka laga cabsado leelkasa meel kastoo aad joogtaan guul baan leeyahay saakara goobihii iyo furimihii guul baad ka keenteen barnaamijkaani barnaamijyaha intaan kulmi doono leegtu muuqaalka meel dheer bay geysaa loofka anigoo yacquub siyaada bahallaa iga daata fideogaadu kusoo gaara assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu